warwaadigan kashkashlayna kelmadaad mar tiraahdo mid kaamil ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii Kalamaane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega managa isku maana maxaad kayga ku diidi no dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kuroodanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaariya ma kayga niqatala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiiriya may erti midaysay maahino aroodagal Kalamaano war ma haysiinaadin waramo maanta barlamaankii roob la horgeeyay madaxweyne farmaajana waxa siri waa waaya arag aqoonyahan ah xilkana aan ku aamini karo marka baarlamaano waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisiin waayahay jeebkana gacanta ma geliyay war maalmahan bay kulamada gaargaarka ay socdeen arintaana wixii la toostoosinay hore loo toostoosi waran arintaasay may baan fahmay ooytan ima ooynab iido warsiinka nikaahe hore waxa loo yiri fariid dufan la wax duuga marka baarlamaanku maanta ansixinta roob loo ma aysan kala harin war maaha kala ku damboytay oo dhageensada lan abaardili ho alis malka deeguru ma waleeri ariyada waxa hore loo yiri suusmeelow yaalow ka beegma arooda war ma haysiine baarlamaanka waa haysay maanta waxayna yiraahdeen roob loo raasimalin haasto maal badan rakaatay iyo kiirafaade raadkiisu maran yahay rukma wada dagaano looma wada riyaaqe goyobow ra'iisul wasaare heesta baarlamaanka ka jawaabaya wuxuu yiri mudanayaal nin rafaadi jiray abid hadduu raaxa weyn helo rarankow horuu maray raacda ugu malaabtee uu ka sii ruleeya ilaa waa ku rubaad go'ay madaxweynaha usuna mabadiina heesto gaaban ka dhawdi roob loo yeeri waan ku daalay raadiskaaga wey ki madaxweynaha madaxweynuhu intaas ugu dari waaye qalbigii ku raaca raysa waayay ooga iga jir rogrogashada war xoogaga wadaniinta iyaguna heesay waxay yiraahdeen roob loo ra'iisul wasaarihii hore xukuumaddu ka tagayay sii haysay waayadan iyaduun dib soo celi ilaa laga maarmo madaxweynaha rabe ariyada ra'iisul wasaarihii hore cali maxamed geediyo islahay lagaaga ma dhaw ra'iisul wasaaranimada hadda ama uu ka sugaya geedi inay soo yeertaan roob la maqlay muga war hore loo yiriyo soo xusuusta asaguna yiri nin la rabaa horeyn badana ambare dawa ka rorge tambaayir run sheegtay raganimo ma waayine ma ku dara war cid roob heshay in aan geedi ahay waa loo yahay war dad kale gabiyo waxay dhaheen dastuur fiican lama waayin iyo xeer cadaalad ah dadka maanta jooga sharciga ku xakameysmayne nin waliba dantu leeyahay soo bandhigayaaye muraadkayga ii fulina waa lagu dagaalaaye qofka nacab waxaad jeceshahay kugu ciyaaraya oo jecel waxaad nacab tahay lala heshiinayne run macluushay been xoog leban looga taag heline xilna waan u wada baahanahay gabiyahaanteene madaxweynenimadiina waa la isku haystaaye haddii aan wasiir noqon lahaa aniga ruuxaygu magacaabisteedii ayaa hadal ka joogaaye intaas aan ku soo goobayaa yaanan sii badin warnin gabiyo wuxuu yiri ra'yi xumo waxa loogu tagay run haday joogto waa ninaan ku rabin kaana raba inaad u roonaato war markii ra'iisul wasaare roob la ansixi wasiirayaashii ku simiyaasha nin walba hambaliyo iska soo jaray war qarafaan iyo islaam ku jireen arooda aniga beyle iyo Omar waxaan hubaa inay u hambalyeeyeen war musabbix iyo mahdi maxamed guulad la hadlayay baa gabiyay wuxuuna yiri raka faqay rafiiqnima tihiin tala laga reebay meelan laga rabin indhaha lama sii raaco ha musabbix sawirkii shalay madaxdu gashay oo arka ee mahdi ka maqnaay sawirkii shalay madaxdu wada gashay ee ciwaanka looga dhigay midnimadeenu waa guusha qarankeena looma dhamayn waxaana ka maqnaa mahdi iyo muudey markaan waxaan isiri sawirka ama ayagu qaadayeen warnamiyo sawirka uusan sheegasan ka xasuusidii koowde reer bakor wilba sawirkii qayri darbiganka degan ama mifuji doonaan ma goradaan war
sawirkii shalay madaxdu wada gashay gudoomiyaha gobolka uu ka maqnaa Cumar Finish war gudoomiyaha Cumar Finish ma matalaadii Muqdisho meel la saari waayay buu ka carooday war madaxweynaha Jubbaland Axmed Medai wuxuu yiri maqaamka iyo matalaadii Muqdisho la meel la saaro Muqdisho ma ka tagayno doorashada soo socotana wax gargortan laga mageli karo labadaas Muqdishona gudoomiye la soo magacaabo ma maamuli karo aryaadaha gudoomiyaha Cumar Finish oo in Muqdisho matalaad wayda ka xun wuxuu yiri maqaamkii Muqdisho leeyahay miyaad maarin habaabisen maqaamkii Muqdisho leeyahay miyaad maarin habaabisen haye war Muqdisho maqaam iyo matalaad midna weyn mayse ninkii nasiib u yeelan lahaa in looga mahad celiyo ayaan wali imaan war anigu ra'iisul wasaaraha maanta la ansixiyay waxaan dhihi lahaa dayac iyo dariiqyada xirxiran shacabka diifaysan qof degdegaya oo dahsanaasi dibdhigitaanka kaba daran dumar ur loo foolo dhihinaya oo la siin dareen gaar ah oo ciidan yeelaynin dawladnimadu ma aha mas'uul dooda laga yeesho war ra'iisul wasaare Roble maanta qodobadii oo ballan qaadina wax ka qabanayo waxay kala ahaayeen amniga doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada cadaaladda iyo garsoorka dawlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dib u eegista dastuurka dab u heshiisiin iyo iskaashiga caalamiga wartaasi waa arkaantii siyaasiyiinta mayda ballanqaad cusuba والله وصل دغالنك الشباب ku darin ra'iisul wasaaruhu ballanqaadkiisa xagee wax ka jiraan talow war waliga aan erijiri malaba siin waraabiye subagna kuga weysadaasan tii hada u leeyo war mar hadii uu ra'iisul wasaaruhu ballanqaadkiisa amni ka bilaabay maxaa kala dhiman haddaan amniga sugu waay baaurtu weeran dabada ka galaya ku dhiman war aniga maanta markaan arkay inaan ansixinta ra'iisul wasaaraha baarlamaanka uu kala harin waxa ay cadaatay inay arbaca ahayd war hadii ra'iisul wasaarahan arbaca la ansixiyay madaxweynahana arbaca la doortay ra'iisul wasaarihi horena arbaca la ansixiyay amuur walbay qabtaana arbacuun ahayd arbacay waa arbacadeedii waramay doorashada dambe arbaca ka dhigaan he aan ka guulaysto caadiya waaya taasi mana lagu heshiinayo aan wala kala isan sheegaso ma gorada lafta gareengno arbaca la dooradiyo huba walaalahay war ma haysiine madaxweynihii Puntland Siciidani maanta baydhabo dika yiri yaa leeyir dadkii hata ka hor usgaro kala madeeyara ligreen ku dhiibeeliya aro ataga muxumeeya turjumaan u noqodonahe baydhabo jannay siin salaame haduu sandhigi karin sida khayr muxuu ka doonay wardani wuxuu dhahaa nabada faylaha aryaadaha dani haduu baydhabo taga waxa uu laga rabaa heestaada inuu qaado nabada naaslanu kale war waxa kale laga rabaa weerarow dooyo waniini war wala ismoogdina jiraan oo dhagansada gaaga madawiina dani baydhabo janay wala ka dhawaay arbaadi la madawiina lafta gareen la dooradeen ka eedinayti wali abdeew mad isaaqsay meel ka dheereen babuk dio weerti dani aw janaaw hadawaaw yeereen boowe goorma madaxweyne dalina janan noqday arooda dani markas baydhabo tagi waldaneeyow dawli in baahanaaye mulku soo dhaway walaal hadda ka hor madaxweyne dani iyo madaxweyne lafta garano si hoos u sheekaysanaya qola aragta xan ka soo gudbisaa la yiri waxay dhaheen madaxweyne lafta garan wuxuu yiri dani waanu madaxweyne farmaajo si gaar ah xiriir ulama lihiye markasta wuxuu ugu guulguulaa haddaad waxaan isku ogeyn ka bayrto wallahi roob waan soo deynaya marka nin rabbiinaysan baan u yiri waryaar wala weynay rooble iyo roobow ha isku qaldina war heestiin ku dheeloy rooba qubade roba misgeele rasaysade roba qubade yaleere warnimay war ma haysiin wali afgooye doona xaafadaha qaar loo kala gudbaa la yiri aryaadaha afgooye hadii doon looga kala gudbaayo beledweynana xaadu malay haysiin markaba la askaga raaba salaame warnimay beledweyne ilaahay wuxuu u kiciyay rag xaaji dhagaxu madax u yahay fatahaadiina waa ka badbaadeen u dambeysay naf iyo maal iyo xoog iyo aqli iyo kartina waa isu geeyeen marka afgooyena sidaas oo kale rag ah ilaahay ha u soo bixiyo war Soomaaliya oo dhan baa fatahaad biyood iyo fatahaad bambaba ku socotay rag Allah u kacasha ka badbaadsha warnimay fatahaad afgooye wafdi ka socda koonfur galbeed tagay waxayna dhaheen degdeg baan wax uga qabanaynaa warnimay raqba waa ku rageede horta inagu ma hadalka un baan ku filanna daamanool hadal ma daayaana la yiri gaboosow war kuba mugmugo wax dheef naqda war madax muuqdiya mid saawira midna laga ma qoostaa la yiri warnimay hudur iyo inay hudur bilanti iska looyidaan hudur haajida ma
toosan war gurmadkii dawladda iyadu suudaan buu weli ku maqan yahay dadka Soomaaliyeed ha dul qaateen inta uu imaanayo war maanta war ma aysiin afgooya qaraxa ka dhacay suuqii xoolaana la qarxi maanta iyo xoolana waa ku dhinteen la yiri manima misna xoolo isku qarxiyay aryaadha si gubal u naxariista hadda ka hor wuxuu yiri dariniya go wadatadii waaba looga sii daray cadawsana ma afgooyii fatahaada biyaha la yaabanaya qarax loogu daray haddana war dagaalkii ka socday galmudug xaguu marayaa horta shabeello waa lagu kala adkaaday bulaclana sidoo kale aan la helayna waa la isla gaaraan maqlay ariya albuur bal sii mar maslina ala kala wareeg war cali jika ku jira wuxuu yiri ciidanka wali saad lagama dabageyn marka waxaan la yaabanahay muraadka u qarsoon war cali yara muraad kala ma ahana wuxuu yiri mas'uud askari gaarahay ma jiro taasu ma hil jufaa marka kulay cali jikada nin lagu dhow ma laha aryaadaha dheer ninku dhawaa lafta kala baxaa la yiri saadka ma u dhiibo asagu war talyaanigu xildhibaanadiisa markay tirada ka bateen mushaar siin kari waayay wuu yareeyay war baarlamaanka Kenya waaba la kala dilaya war nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri wax tira badan oo ku mashquulshan wax yar oo ku mashquulin baa kaaga fiican war xildhibaane haankan oo tirada ka badan oo awlaadin oo gadiisii hayaan mayshal yar oo masmaysal diro war Itoobiya way isku dhawaaqdaan la yiri war xildhibaanaba anaga ma nagala daayo horta war yaa golaha shacabka ma diidanta war buuqa joojiye in baa dilay كتب وركجوج هدلنا كجوج هاي دلي وريا